magaaladan qof ahaan aniga lexjeclo weyn ayaa iga haysa waxay iga haysaa maxaa yeelay anuu magaaladan aan ku dhashay magaaladan aan ku barbaaray dugsi quraan ka bilaabay dugsi dhexe dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare uga baxay aan ku barbaaray ku weynaaday macnaheedu waxay tahay magaaladani waxa weeye magaalo Soomaaliyeed weeye magaalo wanaagsan weeye waxaana aan rabaa qof walba oo Soomaali ah oo wadani ahna uu rabaa caasimadan inay noqoto caasimad bilic leh caasimad weyn oo dad badan degan yihiin inay noqoto habkii dhaqaalaha meeshii dhaqaalaha inay noqoto inay la tartanto caasimadaha kale ee adduunka intaas waxay ku timaadaa inay caasimadu ay tahay nabad sidee ahaan jirtayna waxay ahayd dadka Soomaalida ah dad daris wanaaga dad walaala dad aan wax kale isku fiirin kaliya ku saaxiiba danahooda taasna weeye waxa la yiraahdaa metropolitan caasimad umad dhan ay wada degan tahay sidaasna weeye waxa aan doonayno inay caasimada noqoto si ay ula tartanto caasimadaha adduunka run ahaantii lama ogolaan karo in dalkeen iyo magaaladanba mar labaad ay ku laabato dhabadii foosha xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u helino xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeena ah shisheeye uusan nooga faa'iideysan aanu dhexdeena ka xalisano si dawladeena curdunka ah aysan nooga burburin waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iideysto inaan u tacsiyeeyo ama tacsi u diro dadkii ku waxyeeloobay Allah uu naxariistii ku dhimatay intii dhaawacantayna Allah ka kiciyo xiisadihii magaalada ka dhacay maalmihii la soo dhaafay taasi oo ahayd mid laga murugoodo oo laga baaqsan karay waxaanu go'aansanay inaan xalka ku raadino wada hadal inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiiga shacabka balse aan tusaale u noqono ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkeena mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh sida aan horay u sheegay xalka doorashadu waxaa ku jira in si niyad sami ah loo wada hadlo iyadoo oo meel la iska dhigo danaha gaarka ah lana dhowro amniga muwaadiniinta oo ay ku habsadeen dhibaatooyin kala duwan sida argagixisada abaaraha ka jira gobolada qaar aafada COVID-19 iyo dhibaatooyinkii bulsho ee faraha badnaa aan naqaanay shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan waxaana la rabaa in ammaanadooda loo ilaaliyo dimuqraadiyaddooda loo adkeeyo dawladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa qori isku dhiibka oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado boroseska aan lagu mashquulin qof walba kaambeynkiisu galo nasiibkiisa uu qabaa dee qof walba ilaahay wuxuu qadaray yuu heli saas la isugu dhiibo xilka mudanayaal iyo marwooyin waxaan dhammaantiin idinka codsanaya idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cakiran ee aan ku jirno inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebtembar 2020 golaha sharafta leh waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hogaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh ra'iisul wasaaraha waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn
mudanayaal iyo marwooyin gunaanadkii waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan in ay ka shaqeeyaan danta guud ka waantoobaan kicinta dadweynaha iyo bulshada ka fogaadaan in amniga khatar la geliyo una soo laabtaan dhabaha wada hadalka iyo qancinta iyo isu tanaasulka jidkaas oo keliya weeye ka noo furan dhalinyarada Soomaaliyeed waa ubaxeena weeye waa mustaqbalka berri waxaan idinkula dardaarmayaa ha noqonina xaabo la shito oo dana shakhsi ah lagu gaaro oo haligi kara naftiina maalkiina dadkiina dalkiina iyo diintiina waxaan sidoo kale kula dardaarmayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qaybihiisa kala duwan inay dhiirigeliyaan nabadda iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed dana garab istaago ciidamadeena qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan sidii ay u sugi lahaayeen amniga aan maanta ku hiranayno amniga guud ee dalka una ilaalin lahaayeen badqabka muwaadiniinteena وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته